war maxaa keenay ayaa isleedahay in Fahad Yaasiin lagu anaado wax yar oo laga baajiyo inuu Muqdisho u gudbeen? waxaa keentay in ay tahay oona loo ogoleen in uu kasoo degto dalka magaalada Muqdisho, khaasatan iyadoo berito la calaameeyay 18 inuu dhacayo shirka amniga. saas awgeed ayaa loo diiday in uu ka mid noqdo team Farmaajo. ma ahan labada khilaaf ee kala socoto Roble iyo Farmaajo, waxaa waaye waxyaalaha qaarkooda dunidaba wayna fiirsanaysaa, wayna la socotaa xaaladeena. si kastaba ha ahaato waxa ugu fiican ee la suubi karo waa in laga ahaadaa dhexdhexaad. haddii mar iskhilaafsan yihiin macalinkii iyo kabiirkiiba, maadaama ay iskhilaafsan yihiin, waxaa la rabaa dhexdhexaad in laga noqdo. saas awgeeda ayaa loo xayiray la taliyaha Farmaajo magaciisa la Fahad Yaasiin. marka waxaan ii sheegaa ma la hilmaame shalayto markii dadka qaarkooda la xanibayay mase la dhahayay ma u duuli kartaan oo ma taageeri kartaan. waa xasuus dib ugu noqdo maskaxdiina. saas awgeeda ayaa waxaa loo dhahay laga bartaa laga badshaa. sheekada marka meel fiicanay maraysaa, yaa la iska boobin. berito wixii soo xaadira ilaaha og. anigu waxaa aaminsanahay Roble mase Farmaajo labadaba khilaafka ma dhex jiro, mana isfahmi weysano. waxaa waaye dadkaa la meerina oo la rabaa in jahli laga dhumiyo, oo la rabaa in doorashada hakad la geliyo. laakiin dhici mayso. hadday dhacdana lacalla hadday dhacdo inay hakad gasho doorashada, waxay noqonaysaa midda koowaad, waxay noqonaysaa oray iyo qiiqiisaba in laysla tuuro ee labadoodaba laga waayo dalkeena Soomaaliya iyo buuggeena siyaasadda. waxaan ii sheegaa dadweyne la socda, Fahad Yaasiin ma aha sheekada, Roble ma aha sheekada, Farmaajo ma aha sheekada. waxaa waaye cayaarta siyaasadda. la soco.